السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasoo dunida dacaladeed ka joogaan waxaan leeyahay soo dhawaada channelkeena Samawada Films. fadlan channelka dadku cusub tahay subscribe noo saar, gambaleelkana furo, like saar, videoga share gare, aad iyo aad baad mahadsantiin. caawa waxaan idin wadaa maanso aad iyo aad idin qiiro gelin doonta haddii ay beedmo. ana jeclay dad badan inay kuwaana qaadan doonaan haddii ay beedmo. maansadan waxay igu dhaliyay sheeko aan shalay ku arkay Facebook-ga oo la soo dhigay. sheekadaas oo ka hadlaysay gabar Soomaaliyeed oo walaasheen ah oo nin askari ah oo ka tirsan ciidanka madaxtooyada uu ka iibsaday nin ciidamada AMISOM ka mid ah. kadibna halkaas gabadhii 2 sano xerada uu ku haystay ninka askariga ahaa. intaasna reerkoodii ay ka samreen intay taasideeda dhigeen. kadibna uu HIV qaadsiiyay gabarna uu ka dhalay una ka dhuntay. nidaamkaas ayaa aad iyo aad ii qiiro geliyay iguna kalifay inaan maansadan ka duubo. intaanan maansada guda gelin waxaa isweydiin mudan dhibaatada gabadhaas ku dhacday ma iyada isgaarsiisay, ma ninkii ehelaahaan wuxuu walaalkeeda haba gaarsiiyey, mise ninkii shisheeyaha ahaa ee waddanka la yimid baa gaarsiiyey. su'aashaas Soomaalida ayaan u daynaynaa jawaabta idinka idinka raba. insha Allah qaybta commentiga ayaad nagu soo reebaysaan. aad iyo aad baad mahadsantiin. waxaan guda geli doonaa haddii ay beedmo maansadu ma badna laakiin macno fiican macquul ay xambaarsan tahay. maansadu waxay dhaliilaysaa askarigii gabadhan gatay ee lacagta kala baxay ee ka gatay ninka Ugandayska. kadibna yiri ayleeda shaati dawladeed kii qabo dad u shaqaynaya oo aan ka shiixayn wixii diintu shuush gelisay, oo aan shalaytaba lahayn shalay wuxuu geystay shankaroontii dumareed midkaan shaah ku doonay. sharafteedii gabadhnimo ninkaas shilinka dhaafsiistay, shisheeyaha ninkaas daba socdee shacabka naafeeyey. shib haddaan nidhaahnoon dulmiga shaatiga u gelino, sharaxaad haddaan bixinno oon xumaha sheegno, shibis iyo dharkaynley ilaa shacabka doon yaale, shalambood jamaamiyo ilaa sheekhda dhinaceeda. shacabkii ku noolaa adaa shaatiga u qabaye, shilin baad ka dooratay hablihii dhiigga ku shubay. gabdhaha Soomaaliyeed hadda waxaad dareemi kartaan ninka askariga ah oo Soomaaliyeed aad bay u jecel yihiin, way taageeraan, way garab istaagaan. marka hadda tusaale ahaan oo kaleeto dagaalkii 7/7 la yidhaahdo Itoobiya lala galay, Soomaalida dumar badan dhaqaalaha ugu badan oo lala jaxakamayay waxaa ugu badnaa laga soo qaaday dumar bay ahaayeen. haddana waad aragtay meel kasta way garab taagan yihiin oo ciidankii bay ka mid yihiin. gabar marka ku garab taagan dhinacan dhufayska la jirta, dhinacna dhaqaalihii kugu wado. haddii aad nin Ugandayso san ku dhuudhiya ka iibsatid oo ay dhalay ahoo waddankaaga lacag ku qaata, mushaar ku qaata, adiguna aad tahay nin Soomaali ah oo aad gadaysana ay tahay walaasha, gudnimada daciifnimo ka xun baa jirta. asxaabay waxaan ka codsanayaa qof kasta aragtidiisa ka soo dhiibto. subscribe-na ha la saaro channelkan, hana la share gareeyo muuqaalkan si ay u gaarto madaxda dalka, si ay nidaamkan wax uga qabtaan. aad iyo aad mahadsantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.